السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysa. Taariikhduna ay ku beegan tahay 8 bisha June sanadka 2026. Haddaba barnaamijkeena saakay waxaynu ku soo qaadanaynaa dagaal aad u qaraar oo gantaalaha balastiga la isdhaafsanayo ayaa aroortan saakay mar kale dib u qarxay. kadib xalay markii Iiraan ay madaafiic ku garaacday Israa'iil ayaa iyaduna waxa ay duqaysay Iiraan xaaladda ayaa cirka gashay Xuutiyiinta Yemen ayaa iyaguna soo galay dagaalka gantaalana ku riday Israa'iil Mareykanka muxuu ka yiri isagu ma ku jira dagaalka xaaladda cirka ay gashay shidaalkii adduunka oo isaguna cirka isku shareeray haddaba xaaladda gobolka bariga dhexe oo saakay ah mid aad u kacsan wararkaas ayaynu saakay barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa inta aan ku jirnana wixii cusub oo soo kordha waan idinla socodsiinaya kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo isniin ah taariikhduna ay tahay 8 bisha June sanadka 2026 gabi ahaan barnaamijka saakay wuxuu daaran yahay maadaama aanu dhaqsi soo galnay sidaad arkaysaan warar waaweyn ayaa adduunka ka socda dagaal aad u culus ayaa dhex maraya Israa'iil iyo Iiraan waxaana dagaalka soo galay Xuutiyiinta Yemen awal waxa dagaalka ku jira Xisbullah haddaba tafaasiisha guud xaalku halka uu marayo iyo meesha ay wax marayaan ayaynu barnaamijkeena ku faaqidaynaa xalay waxay noo joogtay in Iiraan ay gantaalo ku hurguftay Israa'iil oo ay nagta uga saartay Israa'iil oo jaha wareertay waa aarsanaynaa ninkii Trump oo telefoon qabsaday oo Netanyahu la hadlay ma aarsan kartid jooji meesha ku joojiir Netanyahu wallay ka tuuy awla idii sheegay Trump warkiisa cid maqlaysa inaysan jirin waa iska booteen odaga meesha saa laga xukumaa nimanka koofiyarta nima saalan ba waa aarsanaynaa aroortii saakay oo isniina ayay iyaguna waxay ku soo weerareen Iiraan ay soo weerareen Iiraanna way cabaysatay iyaduna hadday ku sii socdaan gantaali Xuuti oo aan la filaynaa soo galay Xisbullah dhan uga jira haddaba xaalka cirku galay haddaba wararkii ugu dambeeyay aan idin akhriyo telefishinka Al Jazeera goordhow wuxuu leeyahay Israa'iil waxa ay weerar ku qaaday deegaano ka tirsan gudaha Iiraan ayay weerartay haddaba marka warbixintu way sii socotay waxa la leeyahay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen aroortan saakay oo isniina inay bartilmaameedsadeen dhowr goobood oo markaa ku yaala dhinaca galbeed ee Iiraan oo ay militariga Iiraan leeyihiin iyo bartamaha waxaa la sheegay qaraxyo waaweyn in laga maqlay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gudaha Iiraan waxaa la sheegay in markaa goobaha la weeraray ay ka mid yihiin deegaanka la yiraahdo magaalada caasimadda Tehran magaalada la yiraahdo Tabriz iyo magaalada la yiraahdo Asfahan in markaa weeraro culus ay halkaasi ka dhaceen halkaas markay sheekada joogto oo markaa Israa'iil ay saakay weerartay waxa war soo saaray ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan war soo saaray weerarka saaka lagu qaaday weerar nooc ah waa tii maalmahan waa tii shaki badan u jiray oo Mareykanka diyaaradihiisa markiiba la soo dhuuqay oo la soo riday oo wareer badan Mareykanku uu ka haystay Israa'iil way baqatay oo fiirsada diyaaradaheeda lama soo aadin marxay markan ku weeraraysaa gantaalaha plastiga ay soo rid Iiraan soo gantaalo ma rido ayadana gantaalay inta maalmahan intii xabad joojinta goorba lagu maqnaa ayay gantaalay inta diyaarsatay iyaduna gantaalay ku soo weerartay haddaba markaan idin tuso warka ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay leedahay Al Jazeera ayaa iyaguna goordhow war soo saaray waxay sheegeen Israa'iil inay weerar ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala gudaha Iiraan iyadoo isticmaalaysa sawaariiqda plastiga la yiraahdo
wakaaladda wararka Iiraan ayaa sheegtay in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay sheegeen weeraro dhinaca cadawga ah oo sahyuuniyadda ah inay markaa soo bartilmaamaysadeen dhulkooda iyagoo markaasi isticmaalay sawaariikhda balastiga ah. dhanka kale waxaa warkan isna cadeeyay wargeyska la yiraahdo Walla kaasoo markaa ka hadlay isagoo soo xiganaya ciidanka Israa'iil waxay sheegeen 10 goobood oo ku yaala gudaha Iiraan inay markaa beegsadeen oo ay weerareen. waxay sheegeen meelaha ay weerareen inay ku bartilmaameedsanayeen gantaalaha difaaca cirka iyo sawaariikhda balastiga ah ee Iiraan ay leedahay. u fiirsada kaarta military la isla ciyaara annaga laftirkeena aba saraakiil loo qorabno markaan nimankii marka waxay ka baqeen fiiri gantaalihii difaaca cirka gantaale marka soo ridayaan gantaalahaas waxay ku weerarayaan meesha gantaalaha difaaca cirka yaalaan. markii gantaalahaas ay wax gaaraan oo ay naafeeyaan ayay waxay rabaan diyaarad inay soo isticmaalaan. u fiirsada kaartada la isla ciyaara Iiraan waxay leedahay hadaanay ka shalayn oo lagu kala bixin maalmahan annaga noo qabsaday ku leeyihiin. haddaba marka Mareykan isagu ma ku jiraa dagaalka Mareykanku isagu ma ku jiraa muxuuse wara uu arikanka soo saaray. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ku saabsan arinkaas. haddaba waxaa la sheegayaa mas'uul militariga Mareykanka ka tirsan ayaa isaguna goor dhow hadlay. wuxuu sheegay ciidanka Mareykanku inaanay ka qayb qaadanin weerarkii iyo garaacistii lagu qaaday Iiraan. waxaa qoray warbixintan wargeyska la yiraahdo Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa goor dhow qoray isagoo soo xiganaya mas'uul militariga Mareykanka ka tirsan. wuxuuna leeyahay Mareykanku kama qayb qaadanin weerarada Israa'iil ay saakay ku qaaday Iiraan aroortii saakay weerarada ay qaaday annagu wuxuu leeyahay kama aanan qayb qaadanin. u fiirsada Mareykan wuxuu leeyahay aniga kuma jiro leeyahay sheekadan laakiin meesha waa la is ogyahay ma fahamt. marka sheekadu hadda halkaasay joogtaa. marka sheekadu halkaa marayso ayaa waxaa soo bilowday gantaalo ka yimid Yemen. awlaadii waa hawlgash kuwa Ciraaq wali waa noo dhimayn awlaadii Ciraaq joogtay waa dhimanta. Israa'iil celi weynay dagaalka Iiraan aan rabnaa soo malahayn ayada waa kala baxaynaa taageerta Iiraan awlaadeeda xataa waa soo kacis awlaadda Iiraan oo amrin ma soo kacaan. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray arinta ku saabsan Yemen. haddaba Al Jazeera waxay leedahay jawaab ayaa ka timid dhanka Yemen wax yar kadib markii Israa'iil ay duqaysay Iiraan. ciidamada Israa'iil ayaa aflabadii qayliyay waxayna sheegeen in gantaalo ay ka yimaadeen dhanka Yemen kuwaasoo lagu soo weeraray Israa'iil dhanka bartamaha. waxaana isqabsaday Israa'iil guud ahaan safaaratul indaarka ama siiriga digniinta jugtay ka wadaan ayagana way garaacayaan. waa tahay sheekadu marka halkaasay joogtaa. war hadda isaguna soo baxay waxaa la leeyahay iskuuladii gebi ahaan Israa'iil wax iskuul aadi kara male ayay dawladdu tiri dadkana godadka dhulka hoostooda ha galeen. sheekadu marka waa dhanaan tahay. shalay markii sheekadu xalay ay dhacday oo Iiraan ay garaacday madaxda Iiraan waa lala hadlay Turkiga dawlado badan Pakistan kulli wixii oo dhan madaxweynaha Iiraan lala hadlay aytullaahiga qof helaya malakaas meel uu ku xariisay ninkaan marka madaxweynaha telefoon raaxada looga qaaday. Iiraan markay dhowr mar jugsiisay way ka joogsatay. nimankii marka soo celcelis ma ahad hadda Iiraan waxa leeyahay gantaalaheedu hadday u jihaysteen Israa'iil. marka xaalku marka halkaasuu marayaa. dhanka kale wararka kale ee cusub ee soo baxay iyaguna waxaa ka mid ah oo la leeyahay shidaalkii cirka ayuu galay saaka. nabadi ma jirto xaalku waa xumaaday waa la isgaraacayaa. Xuuti ha dhihin Xisbullah ha dhihin Iiraan ha dhihin jugtaa la isku haya. xaalku marka halkaasu joogaa. haddaba qadar yar oo xayeysiisayaan ku nasanaynaa waxaan dib u eegaynaa wixii akhbaaree soo dhacay intaanu barnaamijka kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo Isniina oo aan ku soo qaadanayno xaaladda bariga dhexe iyo dagaal aad u qaraar oo halka ka qarxay.
haddaba maxaa soo dhacay intaynu ku jirnay aljazeera waxay leedahay abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa wuxuu la socdaa qaabka weerarku u dhacayo Iiraan iyo sida ciidamadiisu ay difaaca ugu jiraan dhanka kale dadka waxa leeyahay waxaa loo ogolaaday inay godadka dhulka hoostiisa ah xilli kasta geli karaan oo ay qaarkood hadda xataa ku sii xaroonayaan si ay uga gabadaan gantaalaha jugta culus ee ka imaanaya dhankaas waxaa leeyahay Iiraan ka imaanaya waayahay wararka kale ee soo dhacay haddaan eegno Israa'iil waxay leedahay waxaynu ka hortagnay gantaal ka yimid dhanka Yemen goor dhawey marka xaalku halkaas uu maraya wararkaas ayaanu barnaamijkeena ugu horeeya maanta ku soo qaadanay hadii alla idmana barnaamijyo kale ayaanu soo gelin doonaa wixii akhbaar ee wararkan dagaalka ku saabsan xaalku halkaas uu maraya allawna mooti waayo xaaladda adduunku waa qasmaysaa marba marka ka dambaysa American hadda ma ku jiro leeyahay laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin inuusan meeluusan uga baxa lahayn Trump inkastoo uu doonayay dagaalkan inuu ka lug baxo laakiin Netanyahu u soo wadiyo waa soo geliyay halkaas uu joogaa fakarkiina ka dhiibta muxuu ku dhamaan doonaa dagaalkan adikuna soo qora aragtidiina la gareeyo share gareeyo meel kastoo aad joogtaan asxaabay waxaan idinkaga tagayaa inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale iyo wararka ku saabsan dagaaladan nabadgelyo